kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal. Fursaduhu waa kuwa kala sarreysiiya bani'aadamka. Dadka qaar ayaa la yimaada horumar dhanka nolosha ah, balse horumarku iskama yimaado ee waxaa jira waxyaabo keena. Waxaana ugu weyn ka faa'iidaysiga fursadaha nolosha. Waxa aan ka hadli doonaa qiso ku saabsan fursadaha ama jaanisyada nolosha. Qisadan waxa ay dhex martay gabar wariye ahayd iyo milkiilaha shirkadda Microsoft ahna ninka labaad ee meerahan ugu hantida badan waa Bill Gates. Gabadhii wariyaha ahayd ayaa weydiisay Bill Gates oo ahaa ninka labaad ee meerahan ugu hantida badan, waa maxay sirta ka dambaysa guushaada? Waxa uu soo saaray check lacageed oo uu ku yidhi ku qoro inta aad rabto oo lacag ah. Inta ay yaabtay gabadhii ayay ku tiri, maye mudane, sidaa ulama jeedo. Su'aalo kale oo ku saabsanaa noloshiisa ayay weydiisay. Mar kale ayuu jeeg u soo saaray, waxa uuna ku yidhi dalbo inta aad doonto. Gabadhii ayaa ugu jawaabtay, ima aadan fahmin mudane. Jeegii inta uu jeexjeexay Bill Gates ayuu ku yidhi, sirta guushayda waa inaanan dayicin marnaba fursad kasta oo i soo marta, sida adiga oo kale. Waxa uu intaasi ku daray Bill Gates, waxa aad ahaan lahayd gabadha wariyaasha ugu hantida badan haddii aad jeeggan iga guddoomi lahayd. Gabadhii ayaa mar kale weydiisay inay suuragal tahay in mar kale lagu soo celiyo xalaqadda barnaamijka. Bill Gates ayaa ugu jawaabay, haa, dhib ma lahan, laakiin fursaddii ma soo laaban doonto marnaba. Fursaduhu waa furayaasha nolosha ee dahsoon ee aadmigu leeyahay, balse waxay ku xiran tahay shakhsiyadda qofka iyo sida uu u karto ka faa'iidaysigooda.